hadda waa aragtay markaad internetka geshid ama gudaha soomaalida geshid sawirradii waxaan sawiraynaa oo gurihii soo soo jiraan iyo ragcaalka qaadayna iyo calaamada si ahayeen iyo baarlamaanka la soo geeyay ama aan u dhigan tutu waa basaata waaye waxaan soo dhaafay waa shalay awooyaasha waxay qabteen raga soo kifaaxa shalay dhalinyaro ah ayagoo waxba haysan ayaa u kifaaxay inay dadka Soomaaliya midoobaan inay xorriyad qaadano inay madax banaanin karano inay la aqoonsado ayaa saf u gaaray ilaah baan ku dhashay kan maanta joogo waxay ka shaqeynayaan ayaa ila ekaatay gadaal uma socyo horna uma socyo marka waxa shaki galay inaan ku jirno mustaqbal cankara ah bulsho ku jirto ayaa sawiraya sidoo sawirnay la weydii marka waxaad u jeedaa mustaqbal cankara ah mustaqbalkii wanaagsanaa ama dadka Soomaalida ay ku riyoonayeen inay gaaraan awoowayaashood iyo aabayaashood naftoodii qaaliga ahayd u horeen dadkii laga sugayay inay iyaguna maalintooda qaataan annaga waa la mugdiyan gelin jirtaankeeni cabsiyan gelin hadda baan kula waxaan qabsanaa cabsi hadda habeen kasta markaa fadhi baalanka fadhi Soomaalida halaha fiiro warbaalin waxaan shaah la cabay meel la fiyaa waxaan u qabsaa cabsi aan u qabsaa habeenkana meeqa shay la dilay maanta ma gashay meelaha ma gashay war ma xakaysa meesha bal maanta la soo galay ma qaadi matna wayna iyo cabsi kale bis cabsi suulaytana niyo kale meesha la soo galay maanta guriga u dhow agarkeeda garaamta horta niyo kaafna waa ilmiga dadkeena iyo wax gaarina ka tuuqo annagoo dhan cabsi aan qabsanaa dadka Soomaalida badan cabsi ku jiro ilaa baa ku dhashay hor u socona waa adag marka waa cabsi aan gacantayna ku sameynayna waa hadii ilaa baa ku dhashay عزيزو صوم صبر كاين عندكم مسكر مرك سير مسكر بكا دad tiyaatar soo sawir ku sheegay marka dad tiyaatar ku jiro sida xitmaan habeen ku xariin riwaayad aan dhameyn tamaani fiirsanay oo taariikh madow magac lahayn yiraahdo qalka la ka bislu waa bis qalka la bisu haya waxa dhacay maalin kasto mid xabada kida mid kale imaan saxabada kida ya sir salama wala kii hore kana ka fiican waa laba xabada kida waa way zaman ma marka waxaan leedahay oo dadka Soomaalida u sheegaysaa in maanta jira inay dahaluubeen oo dareenkoodu uu ku dhisan yahay halka heerka iyo maxnimada laga filayay ama mujtamaca caalamka ay u dhaqaaqeen aragti kale oo qaabaysan oo aad leedahay waxaad ku tilmaami kartaa doorkii laga filayay waxaan jeclaan lahaa bulshada caawa halkan ka fiirsanaysa inaad kani u tilmaamo gudaha aan ka badhigaan buuga sida cabsida ah gudaha aan ka badhigaan waxaan sameeyay dhalinyaro aan ku dhiirigelinayaa dubuga waxaan ka sameeyay ka dhawaajinta dhalinyarada marka hore in dhawaaqno wixii dariiq cabsi ah qoysmo wixii dadka ku cabsi ah qoysmo ana cabsi ayso hebel cabsi ayso xuseen cabsi ayso xasan cabsi ayso aw hada ma ka cabsanaysaa maxaad ka cabsanaysaa oo horiyal waxa ka cabsanaa dib kaajo ana ma ka cabsanaysaa sasa ka cabsanaya ana sasa ka cabsanaya wala qalin سن عبسيدان ولا بحنا وانا واحد لهذا هذه لا أوروريو مستقبل هو هذه أنا كل اليوم مثلا ماشى واحد لهذا هذه لا أوروريو درين كتير ضد الصومالي ده عبسيدة ضدكم أيش وصدان عبسيدة ولا أوروري والرجال ضد إن كنت على قليل وش طبعا يعني نقطة بدون نقولتان كيف إن الحياة واحد لهذا هذه ضدكم أيش مقلان فرق أول حياة ودمان يا ومشوا طبعا حياة حبسيدا أبو رديلا ماني كستان عندك إيشنا ماني كستان الله كل ما وناجا يفرحت أبو ردان كذا ما أسوي سنو هذا ما تقول حكوا شيء تمانتي وكشف هي إن قلت هو نبى تلف هو عينك يا شركة تومر يا ما تطلع أنت تصلي كانوا كعب فدينا ولا يسرون ولا السامع بحنا دي بحنا إذا بان كل شيء عروض الصومالية إذا ما تجرته بقول كذا الصدق أيام دي ما يسا أيوة هو هاي شسمعني كذا كبرنا أيوة الله يتوصل قاعد دي ما يعني إذا بان كل شيء هذا كويس بدبادو عن كيف فكرنا القرار كان بهينا كيف فكرنا كويس ده متبادل هين يعني هي شقي أنا شقينا سبوستين ما إذا كل شيء لكن سلو دولا ده شقينا عادي مصطفى كذا مو هو كذا واجد تغيير هذا أيام هذا وراء إيوه لقاعدين تغيير كذب ودواقع كذب الواحد كل دواقع حراشة نتيجة كصباحي إلا قد دقاقه
london mid waa ku arkay nin kasta gaari maado wax macnaha sidii lagu gaari lahaa cabsida jirta looga bixi lahaa in lagu gaari lahaa wanaag midna ma rabo inaan kaba badiyo cabsida adduunkana makiista maanta saamiga aniga cabsida kulan maxay xaggeega waay igu xagtaas yarkahay aan tamaligan isla garanno waxayna ka cabsanayna waayahay waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo su-aal kale maxamed cali cali sow intii aan anigu aqoonta u lahaa ama uu ka mid ahaa barbaariyaashayda wuxuu sameeyey filin ugu magac daray Cali Agoon waxaan hubaa in waqtigii ugu horreysay ama la daawado ama 88 inay ahayd marka muxuu ku saabsanaa oo aad kaga hadlaysay filinkii ahaa Cali Agoon horta waa maasan tahay filin samaynta waxaa ii riixay hal abuurkii wacyigelinta bulshada hooyo garatay aan sameeyey mid yidhahdo iyo hooyo aan garan hooyo garatay ilmaha si lagu baarsho iyo hooyo aan garan fil la yidhahdo hooyo garata la yidhahda waxaa sameeyey documentary jawharinta badulada la yidhahdo oo taariikhda xeebaha banaadamka ka hadlaysa aruuraysa dhagxaantii iyo sawiraysa ilaa haddana waa insha allah mar bay soo bixi doontaa Cali Agoon filin bulsho loo dhigayo shaqooyinka laga dhigayo Soomaaliya waa state asalkiisana wuxuu ahaa barbaarin oo ahaa siyaasa waa dhalinyaro suuqa ceelgaab ayaa suuqa casayaalka ah oo lagu dhiirigelinayo inay naqan karaan bulshada meel fiican ka karaan haddii wax bartaan ay wanaagsaadaan marka sheeko bulsho ciyaar suuq min ciyaar suuq ilaa aabe ilaa heer u gaaro ilaa oo kana aabe ilaa oo ka gaaro heer ka gaaro marka sheeko nolosha bulshada jirtay lakso kundigeeda u ahay dhalinyarada ciyaaraha suuqa ah laga sameynaayo ayuu asalkeeda ahay asalkii aan waxaana jilayay khayr allah siiya inta dhimatay allah naxariisto nool ilaahay cimriga ha siiyo baadi iftiin baa jiraysa waagaas oo macallimiinta ah iyo barbaarinta kadib filinka lama sameyn talaaniga markaan imid aan tiyaatar oo Somali culture la yidhaha sameeyey in dhaqankeenna oon cod lahayn lagu soo bandhigo hashirta hotel soo bandhigay magaalada Faransa oo saa u noolnahay saa u cayaarnaa saa u farxnaa hooyadeen sidee u taallo gabdhaheen sidee u yaaliin wiilasheen soo yaali wiil shaladiisa wato barkintiisa wato wiil baa kucunaya wato safre iyo noo soo martay guraaga oo Soomaalida ahayd filimka oo ku matalayay tiyaatar ayaan sameeyey farshaxan badanna waa qayb galay oo ah dadka Soomaalida qaabka isticmaasho intaan jooga Talyaaniga hadda sameeyaa muhiim weyn argalo si loogu baxo dhalinyarada oo adiga horseed ku tahay adiga iyo da'daada iyo kuwa lamidka ah ayaa la rabaa in bulshadaani ay u dhisaan buundo ay shalay iyo berri isku xirto bas waa faaruq runti si waxay mayso in la wada hadashiyo kii dhibka keenayay in asaga lagala hadlo